tani waa xaruntii ugu weyneed ee sirdoonka Israa'iil oo tan ugu weyn ee wax lagu basaaso caalamka oo dhan. dhawaan muuqaalo ay baahiyeen dagaalyahanada Falastiiniyiintu waxa ay muujiyeen hawlgal ay ku jabsadeen xarunta sirdoon ee Israa'iil ugu weyn. wargeysyada ka soo baxa Israa'iil waxa ay dhacdada tan ku tilmaameen dhirbaaxo xooggan oo amniga Israa'iil ku dhacday. warbixintan waxa aynu ku dul istaagi doonaa shaqada rasmiga ah ee xaruntani qaban jirtay iyo sida dagaalyahanada Xamaas ay ugu suurta gashay in hawlgalkan ay fuliyaan. ugu horeyn aynu eegno muhiimadda ay xaruntani ugu fadhiday Israa'iil iyo shaqada dhabta ah ee qaban jirtay. bishii December ee sanadkii 2010 wargeyska la yiraahdo Le Monde ee ka soo baxa Faransiisku waxa uu soo bandhigay warbixin cadeynaysa xarun qarsoodiya oo ku sheegay in ay tahay mid caalamka ugu weyn ee wax lagu basaaso taasi oo ay Israa'iil leedahay. wargeysku waxa uu banaanka keenay cadeymo muujinaya sida ay xaruntani u fuliso ururinta xogaha iyo dabagalka muhiimka ah. xaruntan qarsoodiga ah oo la yiraahdo Oriem mararka qaar koodna loogu yeero Yarkown waxaa lagu dhisay caawimaad Israa'iil ay ka heshay wadamada Mareykanka, Ingiriiska, Australia, Canada iyo New Zealand. waa goob ku taala lama deegaanka galbeed ee Naqab, meel u dhaxaysa marinka Gaza iyo Be'er Sabc. waa goob leh aaladaha sirdoonka ee dunida ugu horumarsan oo si adag loo ilaaliyo. waxa ay leedahay derbiye adag, albaabo koronto ka samaysan iyo eeyo ilaalo ah. xarunta sirdoon ee Israa'iil oo dhawaan ururka Xamaas ay jabsadeen waxa sidoo kale ay lahayd xarumo yaryar oo tiro badan oo ku yaala gudaha Israa'iil, halka mid kale oo qarsoodiye la sheegay in ay ku taalo dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto. waxay adeegsataa diyaaradaha Gulf Stream-ka loo yaqaano. shaqooyinka muhiimka ah ee xarunta tani ay qaban jirtay waa basaasida Falastiiniyiinta, Carabta iyo caalamkaba. hawlaha ugu waaweyn ee sidoo kale ay qaban jirtay waxa ka mid ah dhageysiga wada hadallada muhiimka ah ee madaxda caalamka, khalkhalgelinta hawada sare iyo dayax gacmeedyada, iyo waliba samaynta fayrasyo lagu weeraro aaladaha internetka sida fayraska loo yaqaano Stuxnet kaasi oo dhowr goor ay ku weerareen barnaamijka nuclear-ka ee Iran. sida ayaa kooxaha iska caabinta ee Falastiiniyiinta ay ugu suurta gashay in hawlgalka kan ay fuliyaan. indhawaale waxa soo ifbaxayay sida ay dagaalyahanada Falastiiniyiintu ugu horumariyeen qaab dagaaleedkooda iyaga oo garab mara sirdoonka Israa'iil ee xoogga badan. taasi waxa ay weydiin gelisay fashilka ku yimid mukhaabaraadka Israa'iil oo ay tani ku noqonayso nabar xooggan oo kabsashadiisu ay adag tahay. weerarkii la yaabka lahaa ee kooxdu ay ku qaaday ciidanka Israa'iil 7 bishii la soo dhaafay ma ahayn kaliya waxa ugu weyn ee maalintaasi dhacay. dhacdada aan wax badan laga qorin waxay ahayd sida ay kooxdu u fulisay hawlgalkii ay ku jabsatay xaruntii sirdoon ee ugu weyneed Israa'iil. wargeyska caanka ah ee ka soo baxa Israa'iil ee la yiraahdo Yadcoot Arxanoot waxa uu wax ka qoray sida sirdoonka Israa'iil ugu guuldaraystay wax ka ogaanshaha weerarkaasi kadisada ahaa ay qaadeen kooxaha iska caabinta. isla maalintaasi guutada hubaysan ee Ciisadiin al-Qassam ee ka tirsan Xamaas waxay hawlgal qorsheysan ku fuliyeen ama ay ku bartilmaameedsadeen xarunta qarsoodiga ah ee sirdoonka Israa'iil. xogtu waxay cadeynaysaa in ugu horeyn ay jabsadeen albaabka gadaale ee xaruntaasi iyaga oo gudaha u galay isla markaana dilay cid kasta oo ka soo horbaxday. waxa ay jabiyeen albaabka adag ee qolka maamulaha guud ee xarunta sirdoon. markii ay gudaha u galeenna waxay ku dhufteen 3 xabo oo rasaas ah. dagaalyahanadu waxay goobta ka qaateen galal iyo macluumaadyo sirdoon oo muhiim u ah dagaalka ay kala soo horjeedaan ciidanka Israa'iil. hawlgalka kooxda Xamaas ee xarunta sirdoonka Israa'iil ay ku fuliyeen waxa sidoo kale lagu sheegay in aanay ahayn kaliya wax iska dhacay balse uu ahaa qorshe muddo dheer laga soo shaqaynayay, taasi oo ay tusaale u tahay sida dagaalyahanada ay ugu cadeyd meel kasta iyo wax kasta oo ay goobta uga dan lahaayeen.